waxa ku soo jiidanaya muuqaalka bilicda sanay masaajidka marka ay indhahaagu qabtaan ku dhawaad 3 sano oo socday dhismaha masaajidka Harawa ee halbowlaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la furo Sheekh Siino oo kamid ah gudida dhismaha masaajidka Harawa gacanta ku haysa oo uu heliyo qaari Sheekh Xuseen Nuur Qalinle oo kamid ah culimada gobolka Awdal ayaana faahfaahin kooban ka bixinaya masaajidka iyo halka uu marayo iyagoo ugu baaqay walaalihii Soomaaliyeed ee muxsiniinta ee masaajidkani quruxda badan leh soo dhisay inay ka soo qayb qaataan mar kale gabagabada masaajidka oo ay u tartamaan ka hor bisha barakaysan ee Ramadaan alxamdulillah waxaan ku sugannahay masjid Harawa bartamihiisii dabaqii hooseeyay sidaad ogsoontiin masjidkan oo soo socday 3 sano oo waxla dhismihiisii insha Allah taala gabagaba yahay oo maanta ayaamahan baan ku jirnay rooga dhigidiisii waxa Ilaahay fadligiisa iyo manigiisa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala miskiidkiisii gabagaba yahay oo ayaamaha insha Allah aan doonayno inaan furno 26 Shabcaan sodonka bishan hadii Ilaahay yiraahdo Ramadaan 4 cisho ka hor insha Allah ta'ala hawsha miskiidku galin bay soo socotay waxa dadka badankoodu sugayeen jacayl u qabaan beedka Ilaahay qof kasto yarka mas'uuliyaddan hayo waxa uu weydiin jiray goorma la furaya goormay furmaysaa muddada insha Allah ma sha Allah hawshaasina way soo gabagabooyi doontaa oo insha Allah waxaan rajaynayaa Ramadaantii lagu tukado miskiidka sida ogsoontiin dabaqyadiisa waad ka daawan doontiin xaqii dadka magaalada dhisay oo lacag meel kale ugu iman oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala abaal ka siiyo dadkaasi dhisay ee deegaanka iyo meel kastaba ka soo caawiyaba Ilaahay waxaan uga baryaynaa khayr Allah siiyo amaanada ay noo dhiibeen waxaad ka dareemaysaan sidaan ka yeelay laano shayga amaanadiisa annagu xoog waxaan gelinay in miskiidkaasi wax Allah leeyahay wixii masaajidda caalamka u baahan oo noqdo miskiid caalamiya insha Allah ta'ala baan umada u dhisnay maadaama guriga Ilaahay uu yahay guriga Ilaahay xaq waxa uu leeyahay oo guriyaha Ilaahay xaq u leeyihiin inay guriyaheena ka wanaagsanaadaan maxaa yeelay waa beedkii Ilaahay weey boqorka caalamka ka taliya waa gurigiisii qof kasta oo taqiyana waa gurigiisii weey Ilaahay meesha subhanahu wa ta'ala lagu caabudo weey in badan baan hadlaynay alxamdulillah laakiin maanta waa gabagabadii waxa miskiidka hadda u haray waa kabadhadii kutubta lagu gurayay kuwii kabaha wareega miskiidka oo maadaama magaaladu ay iyo waxyaalo badan iyo cid walba fadhiisanayso inaan insha Allah deeru sameeyno shabag in laga soo qayb galo waxyaalaha dhiman oo dhan insha Allah ta'ala laga soo qayb galo oo qof waliba uu ka soo qayb galan doonaa miskiidkaas waa gabagabo mikrofoonadii iyo insha Allah ayaan sugaynaa biidnillaahi kariim waan furaynaa khaatimada dadku inay qaataan oo u ducaynaa maalinka la furo qof waliba wuxuu oran doonaa alla maad ka qayb gadshid laakiin waa gabagabada ka qayb galaan leenahay Cabdisalaam Sheekh Cabdiraxmaan Ilaah baa u doortay inuu beedka isku taago dhismihiisa oo ummadda hor dhigo ehlu khayrka ah oo alla bari iyo ficil iyo fikir intaba iskugu daro waa gabagabadii weeyi Allah inuu waafajiyo inaad khaatimada ka soo qayb gashaan masaajidka wuxuu wax badan buu u baahan yahay deymo badan baa lagu leeyahay ina isagoo deyn lagu lahayn aan furno isagoo wuxuu u baahan yahay oo dhan maartay loo dhameystiro iyo maartay waxa weyn in aad iyo aad sharaf iyo cizi iyo maartay taqarrub ila Allah inoogu filan khatinka laga soo qayb galo masaajidka wuxuu u baahan yahay Cabdisalaam laga soo xiriiro agabiyada masaajidka ka dhiman waxa kamid ah kabarkii loogu talagalay in lagu daryeelo kitaabka Quraanka Kariimka goobihii loogu talagalay kabaha mikrofoonadii masaajidka iyo sidoo kale xayndaab loogu talagalay in masaajidka Harawa loogu sameeyo si looga ilaaliyo ayda iyo xayawaanada kale suxuf cisqi MMTV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal